أنا كان عشاية وقاطع مدينة سوق وينو عشاية وفلسطين أنا قد ميركي بوشيوا بس مدحي كسر مع عشاية ها عشاية ويا ده لكن هذا عشاية نمدي وكبحي وحال قد إن مجاجليست أسود دب مدي وصوب بيري دب سوق خلطي إلا يهدم إحنا عيجا بدان لكن ما في عنا من نوع عسوك له ما أنت بوش خير سبعة مصمم وكحما أني من نوع عسوك له ما أنت مو بوش خير يعني أوكي daawadayaasha qiimaha iyo qaayaa badan habeen iyo maalin wanaagsan runtii sida aad daawanaysiin muuqaalka ku saabsanaa Aweys Cali Baafow oo ka hadlayay arinta Aweys madaxay in lagu shaqeeyo Aweys arinta sarwa inaan wax yar ka dhaho lagu shaqeeyo marka la dhaho ama uu shaqeysto qofkan waa uu shaqeystaa awal wuxuu ka shaqeysanayay baalashle marka maadaama uu baalash la caseeyay uu ahaa caseeynimadu waxa maanta oo uu fadhiyaa subaxii ilaa iyo wuxuu fadhinayaa ilaa maghribkii marka $3 iyo wax la mid ah ama $5 oo maalintii soo shaqeysana marka taas waxa waay maanta dhan uu caseey ahaa marka saaxiibkii Aweys Cali Baafow wuxuu dhahay ninkaas in caseey ahaa uu dhahay hadda laakiin majaajilista laga dhigay marka majaajilista maadaama laga dhigo yiri ninkan oo loo kalkiciyay Xasan Toob u kalkiciyay haddana ma fiicneen uu yiri in Xasan Toob uu ku shaqeeyo oo maxaa la camera majaajilista uu ku shaqeysto okay majaajilada lagu shaqeysto ama camera la hor imaado shaqo fudud ma keento xanuun ma badiso qaylo ma keento buuq ma keento ma fahad si fudud ayuu qofka maxaa la dhahaa xaaladiisa u ahaanay isaga dhan waa deganaanaya hal mar laga duubaa bis Aweys madaxii waa ujeedin hadda maalintiiba hal mar wax laga duubaa bis gurigiisu ku laabtaa waa qoslaa marka halkuu dhahay ninkan in lagu shaqeeyo ma fiicneen Aweys hadalkaas waxaan ku leeyahay adeerkaygiiyo caadi wayno waa la shaqeysan karaa laakiin qofkan wuxuu ka shaqeynayayba howl ka duwan ma ahan hada Aweys inaan karbaashahay ama u jawaabayo ma aha laakiin waxa way toosin waaye de macalinka mararka qaar walbuu qaataa markuu u qaato ardayda wuu garaacaya markuu tumo oo karbaasho ardaydii waxbay xifdinayaan maadaama ay ardaydii wax xifdinayaan inta badan oo xifdintooda ay noqonayso qasab ay noqonay marka arintaas leh marka hadda Aweys waxaan leeyahay marka waa toosina macnaha qalinkii qaladay aan toosinaya waa dhahday in ninkaas majaajilistana iyo wax la mid ah ka shaqeeyo ma fiicnaan majaajilistana hadal waaye hadalna inta badan wax ma keeno dhibaato ma keeno murur ma keeno ma fahant had su'aalaha aniga waa hadlaa shaqan ku jira markaan hadlo sheekay maanta dhan idan qaraacayo waa idin shaqeeyay idinkaa shaqeydin qabtay shaqada idin qabtay waa nooce shaqo oo entertain ah oo madadaalo ah waa idin madadaalay marka aan adigu madadaalayo waa ku shaqeey laakiin marka aniga aan maxaa la dhahaa brush aan qaato oo aan looshita qaato oo kabaya ku caseeyo subaxii hal saac ilaa iyo maghribkii uu qofkan shaqeynayo dee waa dareemi kartaa maanta oo dhan murun ku jiraa qaylo ku dhex jiraa buuq ku jiraa marka shaqadii buuqa iyo qaylada ahayd waxaa ugu fiican midaan hadda anaga ku jirno midaan hadda anaga aan wadno ayaa ugu fiican sababta ugu fiican tahay waxaa waaye tan way degan tahay labadii beri ama saddexdii beri hal maalna la wacaa bishiin wixiisu nadiif u qaadanaya akoonkiisa ku xaroonaysaa maasha allah isagana wuu ku qanacsan yahay raalli ku yahay Aweys waxaa ogtiin Aweys madaxii in meesha markaan kasoo wadaynay uu isaga doortay oo cidda hooyadiisa ayna dhahday wiilkeyga wuu ii shaqeeyaa maadaama uu ii shaqeeyo dee waxaa loo baahan yahay wuxuu maalintii ii keeni jiray inuu bishayaha amarkaas waa qaadanay go-aankaas degdegaan ku qaadanay maadaama aan degdeg ku qaadanay Dowladda Media Group
team anagoo ah waxaan xoogga saarnay in uu ninkan horumar gaaro in uu ninkan maadaama uu talent leeyahay anaga sidaa ogtihiinba adiga aways sidaa adi ogeedba markii aad kelmadda aragnay oo nacala abaa ku yaal iyo adiga qaabkaaga inaad talent leedahay aan banaanka u keennay micneed ma aha aways madaxii inuu xasantoob ku awaal dhacay ma aha micneed ma aha xasantoob inuu aways madaxii u jawaabay ma aha waxaa waaye waa iska kaftan iyo isxusuusin iyo istoosin waaye istoosin waxaa la dhahaa tusaale ahaan hadda maalmahan aways madaxii aways baafooyi ay ka shidan tahay oo jk maruu u fadhiisto uu dhaho miyahow dayaxaasaan idhahay dayax maruu soo fadhiisto uu dhaho ninkan jk laftirkiis aaba isoo kaadi reeba marka arrimahaas oo dhan waxay caddeyn u yihiin daawadayaal in qofka haddii uu markasta dadaalo oo waxqabad suubiyo oo maxaa la dhahaa inuu horumar gaari karo marka aways madaxii walaalkeena waxaa ogtihiin in waqti badan durdurmeedii ay geliso in markasta aan ka fakarno aways muxuu celebrity ku noqon karaa muxuu caan hadda maadaama uu caan yahay la yaqaano muxuu wax caanimada fiir qof markuu caan yahay waxaa la wax caanimadiisi awood u yeelo oo haayo micnaa halbeeg oo cabir u yeelo oo awood usii yeelo laakiin caanimada haddii aadan haysan wax cabir u yeelo oo meesha arti iska tagtid oo karbaash le waxa aad sheegtid dadka qaar youtube le hadda magaalada muqdisho waxaa la ogyahay ka dantay wax kalena ugama damin wax kale maaha waxaa waaye qof hebel saan u dhahay qof hebelaasaan dhahay qof hebelaasaan dhahay qof hebelaa kan yeelay haddii marka qofka markastuu intaas joogo ma guuleysanayo horumarna ma gaarayo laakiin qofka haddii uu ku fakaro warniyaho waxaan cafwan waxaan hurdurudda hays daawadayaal caadi waaye lama kala xanaaqan waaye waxaan aad sameynaysid dadka maxay sigelinayaan dadka ma sharfayaan dadka very interested ma noqonayo aada ciwaan muuqaal fiican mu noqonaa haddii qofka markastuu intaas ku fakaro he will succeed laakiin hadduusan qofka intaas ku fakarin markasta wax le iska soo dhigaayo wax la yeelaayo silent le ka baxaayo never ma guuleysanayo guush waxay ku jirtaa inuu qofka dadaalo inuu qofka hal abuur sameeyo inuu qofka waxqabad la imaado inuu qofka markasta uu check-in isku sameeyo inuu qofka markasta uu ka fekero war waxaan aan sameynayo maxaa dan iigu jirto war waxaan aan sameynayo ahmiyad noocee leedahay haddii qofka uu intaas markasta ku jiro he will succeed at every time marka daawadayaal kamerada waxaa yahay liban shorla daawadayaasheena qiimaha iyo qaayaa badan waxaa idin leeyahay ila dhegeysta codkii gaabnaa ee ku saabsanaa falanqeynta ahaa in aways madaxay uusan ku habboonayn inuu shaqeeyo ilaa awal wuu shaqeynayay hadduusan shaqeyn muxuu cidiis ku beelanaa okay awal shaqatan ka daran uu ka shaqeynayaba oo ahayd baalashle oo subaxii 2 saac ilaa maqribkii laakiin hadda waa actor waa celebrity man ilaahay ka sokow team durdurmedia ayaa soo garab qabtay markasta kama caajisayno kamana fakarayno inaan soo saarno dad bulshada madadaaliya habeen iyo maalin waxaan ku fakaraynaa dad talent leh inaan keeno halkan dad ummadda wax u taraa inaan keeno dad wax qabad leh inaan keeno kaameradii liibaan mustafa isxaaq maamow liibaan shoorley tan iyo kulanadaba sidaas iyo aniga ninkaas madiina ku kulmay madiina markaa ku kulmay waa sheekeysanay wareysiyaraa laga qaatay wareysigiyaa laga qaatay meeshii ku sheekeysanay kadib gurigooda tagnay ilmuhu soo koriyaa dii lagu tuso halkiiba adoo ku lufacaya kan kale kan oo lufacaya kan kale wuu kasii weyn yahay macnaha marka liidha aniga ninkaan casheeyo qaataa madiino suuq weyn oo aagaa casheeyo fadhiistaa aniga damirkeygu sii waay ها عساي ويا ليدا لكن هذا عساي نمدي وكبحي وحال لقى دقي إن مجادليست عصب ضد الميديا وصوب بيري ضد سوق علتي إلى يهد معنا عيقا ودان لكن ما في عنا من نوع سوق له ما أنت هو شخير سبعة مصندوق وحما يعني من نوع سوق له ما أنت مو بشخير يعني أوكي horta waxaa leeyahay awees allah caafiyo noloshiisana maaragtay ilaahay u barakeeyo ilaahay ha ka saabo jajumo hay adigna saxaab waa mida ka mida kula yaabana aseeyo shaqo waa shaqo sharaf waa aad iyo aad kan waa garaawista taa maqas waa shaqo
صح dadka ha kala soocina waxaan dadka matuugsana qofka waa may taasaan igu haystaan qofkan waa shaqo aniga marka midaa kuu sheega hadalkeyga dhegeyso caseeye waa shaqo laakiin caseeye maanta adoo kale waa gali kara anoo kale waa gali kara ninkaan oo kale waa fadhiisi kara ma fahamti laakiin adiga marna damiirkaaga yuu ku siin abees madaxiigaa dhul fadhiisana dhulka markuu fadhiisto calooshiisa dhulkeena madiina adiga hadda laguma sheegaa waa baraka dagaalaa ka dhici karo laba ciidana isku dhici karo abgaalka dhexdooda isku dhici karo ma ordi karo